بلال أشهاد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أفكي قبضت المهم أشهادك مركا أفكو قبصد أودي وإلهي إسي وشوف فريسي rasaasta dadka kugu dhuftay soo laba xab ma xabadaha kugu dhacay midna way iga dhex baxday oo dhuunta dhinacay iga soo gashay dhigta hoosteeda ka baxday dhana iga soo gashay dhanka kalena igaga baxday iyadoo jeexday dhuunta oo ilaahay kuma soo daraadee ayaan la ii diidanaa inaan wax cuno waxna cabo ilaa muddo 5 maalmood maanta inaan Soomaali u soo baahdo oo aan gacanta aan hoorsado waxa ii geeyay waxay tahay waxaan ogahay shalaykii aan dhaawacmay tira ka 5 maalin waxba maan cunin waxna maan cabaynin faleen baa wax ku cunaa waxna ku cabaayay muhiim ugu dambeyn waxaa dhacday in dhiig joojin la ii sameeyo meeshii la iga talo then habeenkii xilli dambe qol la igeeyo maalinkii dambe qalin la igu sameeyo بلال أشهاد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أفكي قبضت المهم أشهادك مركا أفكو قبصد أودي وإلهي إسي وشوف فريسي oo aan gabadhii aan arkay oo lay soo qaaday lay soo dhaqaajiyay mar allaala markii aan isbitaalka aan imiday mar ogaalkaygu uu baxay waan soo laabanay waan soo laabanay mar walba waxaan ilaalinayay qalbiga iyo dareenka waalidkayga waxaan isku dayay mar walba aan soo nibdaad inaan familka aan qanciyo in aan hadal aanan dhihi karin aan iska qasbaayay almuhim ugu dambeyn waxaa dhacday in dhiig joojin la ii sameeyo meeshii la iga talo then habeenkii xilli dambe qol la igeeyo maalinkii dambe qalin la igu sameeyo waxa la yiraahdo matooma meesha gashay dhiigiya laga soo shubay tubaa la suray alxamdulillah ala kulli xaal maanta heer waxaan marayaa aan socon karo hadalkayga walow yuusan badanin laakiin aan hadli karo alxamdulillah cuntooyinka qaar aan la ii ogoleen qaarna waa la ii ogol yahay cuntada jilcana la ii ogol yahay alxamdulillah intaana waa ilaahay mahadi maalinkii aan dhaawacmay tira ka 5 maalin waxba maan cunin waxna maan cabaynin faleen baa wax ku cunaa waxna ku cabaayay hadalkayguna muusan badnayn hadalka waa la ii diidanaa maantana alxamdulillah waa hadli karaa waana idin sheekayn karaa in badan waxaana rajeynayaa insha Allah inaad intaas aad igaga bogateen waana idin mahad celinayaa dhammaan dadka wax soo diraya iyo dadka sheer gareynaya ee meel walba gaarsiinayo asxaab fara badanna waan rajeynayaa insha Allah inaad gaarsiisaan haddii alla idmo waa mahadsantihiin linkigaas hadduu ku dhufto oo gudaha u galo oo GoFundMe-ga uu aqriyo qaybaha hoose nambarkayga koomadeyda ku qoran halkaasna wuu igala soo xiriiri karaa wuuna iga soo caawin karaa anigu maanta inaan Soomaali u soo baahdo oo aan gacanta aan hoorsado waxa ii geeyay waxay tahay waxaan ogahay shalay ayagaan ahaa maantana ayagaan ahay beritolna ayaga ahaan doonaa taasa igu kaliftay inaan baahideyda aan u soo bandhigto almuhim aniga ka bilaal ahaan dhibku wuxuu isoo gaaray 2 bishii September habeenimo fiidkii anoo fadhiyo meel maqaaxi ah anuu sii jeeda qaybta gadaale la iga toogtay xabadu dhana iga soo gashay dhanka kalena igaga baxday iyadoo jeexday dhuunta oo ilaahay kuma soo daraadee ayaan la ii diidanaa inaan wax cuno waxna cabo ilaa muddo 5 maalmood aan waxba aan cunaynin waxna aan cabaynin ugu dambeyn hadda maanta waxaan awoodnaa inaan hadlo inaan wax cabo inaan wax cuno ilaahay mahadi dhaawaci inta badan waa ka soo bogsooday maadaama aan soo bogsoodana waxaa loo baahday xaggii dhankii kale ee dhaqaalaha iyo ilaahay kuma soo daraadee waad ogtiin anigu nin dhaqaaliyahana ma ahi nin dhaqaala ka tabcada ma ahi Soomaalida ma ahi nin ilaahay kuma soo daraadee taajira family taajira kama soo jeedo taas igu kalifta marka maanta inaan idinka codsado in la garab istaago bilaal insha Allah waxaan rajeynayaa in ilaahay caafimaad buuxa marka koowaad ku siiyo midda xigtana habeenkii dhibaatada kugu dhacday dadku aad bay uga xumaadeen aad bay uga murgoodeen dadka dhammaan waa ay kuu duceeyeen aad bay kuu jecel yihiin waxaa taa nin dhalinyaro ah oo dalkiisa ku sugan dalkiisa jecel dadkiisa jecel samafala ah dadka maaragtay u gargaara dadka caawiya
maanta adiga in Soomaali ay ku caawiso waa ay ka go'an tahay waxaan ka warqabay habeenkii dhibka kugu dhacay siday uga dhiidhiyeen marka bilaalow aan mid ku weydiiyo rasaasta dadka kugu dhuftay soo laba xab ma xabadaha kugu dhacay midna way iga dhex baxday oo dhuunta dhinacay iga soo gashay dhigta hoosteeda ka baxday midna waxay iga sartay xagga dambe ee madaxa okay dadka xabadda kugu dhuftay ma aragta adiga ishaada ma saartay may indhahayga ma saarin anuu sii jeeda la itoogta okay insha allah dadkaas dhibaatada kugu geystay ilaahay agtiisaad ku xisaabtamayseen haddii la aqoodana insha allah adduunyada looga jarayaa ciqaabta ay u qalmaan ay ku helayaan waxaan rabaa inaan saaxiibada aan ogeysiiyo oo aan ugu soo celiyo haddii aadan awoodin inaad maanta aad halkan aad iga caawidaan waxaad awoodaan inaad linkiga profilkayga saaraan aad gashiin si aad u heshaan akoomadeedii nambaradeeda meesha saaran linkigana waa GoFundMe asigana sida wax loogu bixiyo haddaad taqaanana waa ku bixin kartaan si wanaagsan u hadashay guddoomiye waana kaaga mahadcelinaynaa dabcan dadku waa ay maqlaan hadalkaaga tirana kuma yaro 4,000 ku dhawaada inala socota insha allah waxaan rajeynayaa in bilaal ay caawiyaan bilaal waa nin geesiya waa nin dhalinyaro ah oo dhalinyarada tusaale wanaagsan u ah oona u qalmaa in la caawiyo soo gala requestiga soo dirsa yaxbul haddaan hele ayuu ku salaamayaa bilaal walaal macadna ku salaamayaa waa sii daaya Soomaa amne ha sii daa dhalinyaro aad baan idin salaamay dhammaantiin horta inta xanuunsan ilaahay caafiyo inta ii sheeg caafimaadka ilaahay ha u siyaadiyo halkan waxaa saaran walaalkan Bilaal Bulshaawi aad wada garanaysaan oo maalmihii u dambeysay dee xaalad ay macnaha soo wajahday oo ii sheeg waa ka warqabtaan dee kulligiin waa ka warqabtaan Bilaal Bulshaawi uu dhaawac yahay oo macnaha ii sheeg xabad ku dhacday oo marka hadda xataa ninkan xaaladiisu macnaha dee qof inta ag joogta maahan intiin idinka warqabin marka halkan Soomaalidu waxaan ku jeclahay markay timaado hiil waa isku helisaa Bilaal Bulshaawi waa ka warqabtaan intuu ii sheeg arrimo badan buu soo qabtay waxaan ka mid ahaa caawintii dadka Soomaaliyeed oo abaareysnaa uu caawin jiray oo meel kaste oo deegaan kasta uu tagi jiray marka waxaan naga codsanayaa dhalinyaro adduunka wax isku yahay aakhira wax isku maaha bilaal waa saaxiibkeen walaalkeen waa nin dhalinyaro aad u fiican waa nin aad u fircoon waa nin bulshada Soomaaliyeed oo dhan jecel yihiin asna jecel ani ahaantida yaxbul bilaal nolosha horta marbaas aragnay mar waxa hadda aan Muqdisho imaanayay oo aan 2 saac kaliya joogay dee anuu bilaal markaas anoo ogaaba inuu fiican yahay waxaan soo ogaaday inuu nin aad iyo aad dhalinyaro ah oo fircoon oo dadkiisa Soomaaliyeed jecel yahay uu yahay marka waxaan naga codsanaynaa dhalinyaro caawa halkaas walaalkeen Bilaal Bulshaawi waa ka warqabtaan xaaladiisa in caawa halkan u kacno waa landheere waa rag rabiiqaan waa nin aad iyo aad u fiican xaqiiqatan Soomaaliduna mid baan ku jeclahay waxaan ku jeclahay markii arin timaado waa is garabsadaan waxaan jeclaan lahaa asaas u garabsanaysaa inaa markas isu garabsataan dhalinyaro tan yeesasaan ku ekaan bilaalna caawa aan tusno inuu walaalkeen yahay inuu nin dhalinyaro Soomaaliyeed yahay inuu markuu hiil naga soo baxday oo aan u gudi karno ali maqlaya Soomaa ayuu aad lagu maqlaa adduunka waxa la helo caafimaad baa wanaagsan qofku hadduu caafimaad haysto wax kasoo sameynaya oo soconaya wax kasoo qabsan kara laakiin caafimaadku wax la helo maaha dhalinyaro bilaal walaalkeen waa dhaawac waa ka warqabtaan dhalinyaro marka Bilaal Bulshaawi aniga wallahi habeenkii aan arinkaas aan maqlay saan u naxay wallahi marka qaarkood wallahi marka soo xasuusto aad baa u yaabaa waayo bilaal nin dhalinyaro aad u fircoon weeye oo maanta haddaad hiil hawl kaga baahatay wax kaga baahatay aad ka heli kadib maanta annaga naga helo weeye Bilaal Bulshaawi gar iyo gardaraba Bilaal Bulshaawi waa inaan garabkiisa noqonnaa waa inaan maanta tusnaa waa inaan u muujinaa bilaal waa ka warqabteen inta qof oo abaarihii dalka soo maray soo uga qayb qaatay meel kastuu tegay oo gobolka Soomaaliya oo meel kastuu tegay maanta marka mid baan ku darsanayaa waxa weeye
adduunka marka wax isku yaha aakhiro wallahi wax isku maaha wallahi qofkas camka soo tagaya marka Soomaalidu waxaan kaga yaabaa marka qaarkood markii wixii gadaal ka dhacaan bay sheeg wax sameeyaan shalayto marka lama rabo shalayto lama rabo maanta wax kaste qof kasta uu fahmayaa marka walaalkan Bilaal Bulshaawi halkaas inoo saaran yahay daan garab istaagno gar iyo gardaraba yaa kalo ayuu meesha saaro oo sugi Cabdullaahi soo saare Cabdullaahi waa idin salaamay dhammaantiin wax ani malay maqlaan hadda balkom may adiga waa loo maqlaa Cabdullaahi waa toos baa soo gashay salaam saax soo dhow shaashadana garaaca ilmaada riyaalo xataa waxa laga yaabaa dhanka culeyska inay tahay waayahay waa leegaga horreeya u malaynayaa soo hadli karaa ayuu waa hadli ka dhaa walaal macaan okay dhammaantiin waa idin salaamayaa walaalkay Bilaal Bulshaawina si qaasa u salaamayaa waxaa helay cadow aan naxin cadow aan nolosha waxba ka aqoonin cadow aan dhalinyaranimo iyo Soomaalinimo aan waxba ka aqoonin oo maaragtay wax hadda lagu soo weeraray waa ninka dhalinyarada ee iska baashaalaya ciyaalka xaafadda iska ah siyaasad boona shaqo ku lahayn howlo kaloona shaqo ku lahayn bulshadiisaasoo caawiya oo u gurmadaa marka qofkaasi cadow lama dhihi kare waa qof maaragta xag jir ah marka horta taas waa ka tacsiideyna waxa la walaalkayow ilaahaygi intaa kugu simay waa mahad iska leh qofka hadda maanta waxba kuuma yaraysan laakiin ilaahay baa xaggiisa laga dhintaa intaa markaan ka gudbo waxaan leeyahay waxaan idinka codsanaynaa inaa horta live ka share garaysaan bulshada Soomaaliyeed buu Bilaal u shaqayn jiray u adeegi jiray waana maantana asagiya maanta nooga baahan inaan garab istaagno walaalkeen waaye nin dhalinyaraa waaye ciduu dembi ka galay ciduu magaranaysaa wax ku sameeyey ma jiraan sidii shalay oo hooyooyinka Soomaaliyeed ee meel kasta degan ee abaaruhu saameeyeen oo biyaha ugu dhaaminayay oo raashinka ugu qaybinayay maanta waxaan idinka codsanaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay garab istaagto Bilaal Bulshaawi Bilaal Bulshaawi nin qabiil ma aha nin qabyaalad iyo qabiil huriya ma aha waa nin dhalinyaro ah maanta meel geyga Soomaaliyeed ka xiranna ma jirto marka dhammaan waxaan idinka codsanaynaa walaalaha Soomaaliyeed inaa Bilaal garab siisaan Bilaal waa inaa garab istaagnaa oo maaragta qof walbo wuxuu awoodo walaalkeen maanta waa naga xanuunsan yahay duco haddaa awoodid xataa ayada laftirkeeda wax dheefka kaliya waxba ma aha ducadu xataa waa sadaqo waana waxa ugu fiican marka walaalayaalow ilaahay inuu noo caafiyo walaalkeen ha loo soo duceeyo sidoo kalena ha la soo garab istaago maanta support uu nooga baahan yahay Bilaal waa ninkii shalay aad garab taagneedeen saaxiibka la aheedeen maaragtay meel walbo aad maaragtay oo dadka Soomaaliyeed aad ku taakuleynayeen oo ku saboor gareynayeen baalasha oo ku duuliyay shalay idinka u ahaayeen maantana waxaa la rabaa idinka inaad garab istaagtaan oo si maaragtay walaalnimo ah oo kalgacal leh inaad u garab istaagtaan walaalkay Ayuub asagana waa u mahad celinayaa oo barnaamijkan soo qaabiyay inta dhammaantiin beerka ka jecel inay salaanto ama mar-uun codkiisa maqashana waa mahadsantiin idinkana waxa weeye dadku waxa weeye lama wada qancin karo laakiin waxa waaye hadla idinkana aada u mudan tihiin laakiin waqtiga oo yar awgeed iyo dadkii oo maaragtay inta maaragtay importantiga ayagana la rabo in maaragtay waqti la siiyo marka waxaan idin leeyahay walaalayaalow Bilaal gacan aan siino aan support gareyno ani xataa diyaaraan ahay marka wixii awoodeedu tahay walaalkay inaan maaragtay aan dhammaanteen aan garab istaagno oo aan support gareyno marka ayuu wax ka baxaya aada u mahadsan tahay war Cabdullaahi soo dhawow wixii hadal Cabdullaahi baa dhameeyay anuu hadday waa hadlay baajina oo waxa dhiman kali ah in macnaha hadlo iyo dhalinyaro badan oo soo kori doonta marka baajinane olad baa haystay akoonkiisa kale ka soo galayaa
marka dhan si la sheegay weeye Bilaal Bushaawi waa walaalkeen Soomaaliyeed waa ogtihiin intuu qabtay in sheegi mayo maanta hili hol buu nooga baahan yahay de gar iyo gardaradan annaga ish agtiisaan nahay waa nin dhalinyaro oo ummad Soomaaliyeed hooyooyin badan caawiyay wax badan u soo qabtay meelo badan tagay markii wadanka ay ka jireen xaaladaha xun abaha xun marka waxaan niga codsanaynaa inaan caawa walaalkii Bilaal Bushaawi aan tusno walaalnimada aan garab istaagno aad ma santiin Bilaal dhakhtarka wuxuu dhahay aad u hadlin maadaama ay xabada dhunta ka dhax baxday marka saas oo socda waxaad ku caawin kartaan ku caawin ninka walaalkiina Abduqaadir Boos dhalinyaro wuxuu soo qorstaa Bilaal ma hadli kara dhalinyaro waa Bilaal waa hadalka looma ogolo hooyaa ma ogaado waxaan rajeynayaa Bilaal caawa wax uu ku qanco inuu ummadda Soomaaliyeed ka helo walaasha badan isku biirsada ninkan odaga ah waxa ugu muhiimsan nolosha qofka bini'aadamka waa caafimaadka gardaray macnaha ku dileen oo ay ku dhibaateeyeen asagoo dalkiisa jooga iska qaxweynaya laakiin adduunyadana iska koobanba qof walba qof dulmiya qof walba qof dila maalin waxaa jirta lala xisaabtami doono adduunyadana waa kaga soo baxaysaa qofkii qof dhibaateeya ama qofkii qof muslima dila marka hadda Bilaal baa nala jooga waa ilaahay mahadii intii ay la maleegayeen ilaahay waa uga dhibireeyay oo hadda waa ninkaas hadda meesha nala joogo hadlaya qorshoodu ma ahayn inuu noolaado ninkan laakiin ilaahay baa yiri maya waa nool yahay waa caafimaad qabaa kaliya wuxuu u baahan yahay taageeradiina maadaama xabadu ay iga martay dhuunta dhexdeeda ay martay alxamdulilah dhammaan dadka i daawana waa u mahadcelinayaa dadka ii soo duceynaya waxaan leeyahay jazakallahu khayr ducadiina ayaan maanta aan intaan kusoo gaaray dadka wax ii soo dirayna waxaan leeyahay jazakallahu khayr jazaa waad mahadsantihiin meeshaad kasoo qaadeenna khayr allah idinku bedelo weli waa idiin baahanahay intaan keliya maaha qofkii aanan awoodin inuu gift inta iibi meeshan kusoo diro wuxuu awoodaa linkiga profilkayga saaray inuu ku dhufto uu GoFundRising-ka oo wax ku diro haddii GoFundRising-ka oo wax ku diri karina qaybaha hoose ayuu ka heli karaa nambarkayga iyo akoomadeyda hadduu Soomaaliya joogo halkaasoona wax igu soo diri karaa insha Allah ceeb maaha inaan Soomaali inta soo hor istaago aan wax weydiisto waxaa ka ceeb badan inaan ano dayacan meel dayacan ugu dhinto ma garatay marka waxaan idinkaga soo baahday oo idinkugu imaaday waa idin jeclahay isku haleena isku keen haleynaayo waana rajeynayaa insha Allah caawa inaan meeshaan anoo qoslaayo faraxsan aan ka bixi doono haddii alla idmo intaasaa kaga baxay okay ma santaa Bilaalow hadda waa maqlaysaan Soomaaliyay Bilaal waa walaalkiin Soomaaliyeed halkan isku haleen iyo kalsooni oo idinku naga qabo ku soo fariistay soo inii sheegay weeye adduunkan haddii wax la isku qaban aakhiro wax la isku tarimayo